kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa inaan idin la wadaago war culus oo hadda ka soo baxay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha gaar ahaan degmada Alkowsar iyo degmada Daaronimo oo caawa lagu soo waramayo in ay ka socdaan dagaal iyo duqeymo culus oo u dhaxeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda Al-Shabaab. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu soo waramaya in caawa weerar ay ku qaadeen fariisin ciidanka Al-Shabaab ay ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha gaar ahaan degmada Alkowsar iyo degmada Daaronimo. Daaronimo iyo Alkowsar waxay ka mid ahaayeen fariisimo qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha ee Al-Shabaab ay ku lahaayeen balse caawa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa u daatay waxaana halkaas lagu soo waramaya in caawa Al-Shabaab laga furmuroojiyay gacantoodana laga saaray haddana ay ku sugayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka. Xogtaas ayaa rabaa in idin la wadaago haddii ay tahay markii ugu horreysay soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe channelka like iyo saartid ina sii share geli si uu gaar saaxiibada adiga kale aad ma asatahay. Caawa waxaa soo baxaya warar sheegaya in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay weerar afar jiha oo cirkii dhulka ay ku qaadeen fariisimo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha gaar ahaan degmada Alkowsar iyo Daaronimo. Alkowsar iyo Daaronimo Al-Shabaab waxay ku sugnaayeen bilihii soo dhaafay balse ugu dambeyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa caawa waxay u daateen fariisimaha Al-Shabaab halkaas ay ku lahaayeen waxaana lagu soo waramay in Al-Shabaab caawa halkaas laga saaray gacantoodana laga bixiyay haddana lagu soo waramay in ay ku sugayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka. Si la mid ah waxaa soo baxaya warar sheegaya in halkaasi caawa dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo horjoogyaal ka tirsan kooxda in halkaas lagu beegsaday laguna duqeeyay sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiisha halkaas ku sugan. Sidoo kale saraakiishu waxay inoo xaqiijiyeen xogo hoose oo sheegaya in Al-Shabaab weerarkii ay ku qaadeen degmada Masaajid Al-Guud markii horeba ay ka soo abaabuleen degmada Alkowsar ee gobolka Shabeellaha Dhexe balse ugu dambeyn caawa Al-Shabaab iyaga markooda loo daatay lagana saaray degmada Alkowsar gacan ku hintooda haddana ay ku sugan yihiin qaybo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Si la mid ah Al-Shabaab waxaa laga saaray caawa iyadana degmada Daaronimo ee gobolka Shabeellaha Dhexe. In caawa Daaronimo iyo Alkowsar Al-Shabaab laga saaro goor sii horeysana oo maanta ilaa shalay laga saaray degmada Rundergood iyo Awoori laga saaray Al-Shabaab waxay noqonaysaa dhawaljab weyn kadib markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay xoojiyeen weerarada ay ku qaadayaan fariisimaha Al-Shabaab ay kaga sugayeen qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmooyinka aan soo xusnay oo caawa laba degmo ka mid ah gobolka Shabeellaha gaar ahaan Alkowsar iyo Daaronimo Al-Shabaab caawa gacantooda laga saaray goor sii horeysayna si la mid ah laga saaray sida aan hore idinkugu soo sheegay qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha gaar ahaan Rundergood iyo Awoori. Al-Shabaab Awoori waxay ku soo laabteen maalin ka hor balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ayaa saakay waxay kula wareegeen dagaal culus halkaas ka qarxay balse ugu dambeyn ciidanka ayaa kaga taagroonaaday waxaana halkaas laga saaray kooxda Al-Shabaab oo markii hore si dhuumaaleysi ku soo gashay deegaanka Awoori ee gobolka Hiiraan. Si la mid ah degmada Rundergood Al-Shabaab waxaa looga saaray dagaal culus waxaana hadda degmada Rundergood ku sugan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Al-Shabaab waxaa maalmihii lasoo dhaafay qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe kaga socday guluf ka dhana kooxda waxaana maalmihii lasoo dhaafay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay xoojiyeen weerarada ay Al-Shabaab ku beegsanayaan fariisimaha ay ku leeyihiin qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Maalin ka hor ayay ahayd markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay duqeen ay la beegsadeen fariisinta Al-Shabaab ay ku leeyihiin fariisinta ugu weyn ee Al-Shabaab ku lahaayeen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Sida inoo xaqiijin saraakiisha ciidanka xoogga Soomaaliyeed ee hogaaminaysay weerarkii lagu qaaday degmada Ceelbuur waxay inoo sheegeen in halkaas lagu beegsaday horjoogyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab maadaama halkaas ay u ahayd fariisin horjoogyaasha kooxda Al-Shabaab ay ku dhuumaaleystaan ama ay kaga gambadaan weerarada duqeymaha ciidanka ay ka fuliyaan qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Ceelbuur. Isku soo wada duub in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay xoojiyaan weerarada ay maalmihii lasoo dhaafay ku beegsanayeen fariisimaha Al-Shabaab ay ku leeyihiin qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa imaanaysa kadib markii taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ay amar ku siiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in hadda kadib uusan jiri karin askari habeen seexan kara furmaha hore ee dagaalka in askariga mar walba diyaar u ahaado dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab isaguna askarta ku amray in askariga mar walba uu diyaar u ahaado in askariga mar walba uu saadkiisa dusha ku sito mar walbana socod iyo in infantry gobolka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin ay ku galaan oo diyaar u ahaado askariga sida uu sheegay taliyaha ciidanka. Si la mid ah taliyaha wuxuu sheegay in hadda kadib Al-Shabaab aan laga tuugi doonin inay soo dhiibaan balse Al-Shabaab hadda kadib meel walba ay joogaan taliyaha sida uu sheegay lagu beegsan doono. Haddii inta la soo gaarto waxaa ka codsanaya inaad subscribe channelka like saartid share gareysid si uu gaar saaxiibada kale aad ma santahay.